وزيرك وزارة الشقة شغالة دليلنا يسبورتيكا وزير حوالك وزارة بوليس هوادا دليل حوالك قبلك تقدم مدى مسؤولين تكلا دولة سراكيشا أقوياء كالرياضة يدمان كسوق الكلياشا حين كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لنا بريو مناسبة قيمها بدن تدقات الجورة أساس بحسب الحرية يا دولة لماذا يا قرن لماذا الصومالي أو يبلى لي أسوأ هم في حلقة مالها عين فقط ينقص بالدقيقة أنا وسنة خطبات سنة كهر iyadoo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waqtiga joogay ay damqadeen sida ay ummadahu u damqadaan ay dhiidhiyeen oo ka dhiidhiyeen isticmaalka iyagoo aan awood u dhigantana lahayn aqoon u dhigantana lahayn haddana taariikhda baaldaha ka galay hadafkii iyo ujeedadii ay doonayeen xaqiijiyay ee dawlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed dhaliyay gobolkaanuna uu taariikh ku lahaa iyadoo asaasayaashii iyo hogaamiyayaashii iyo halgamayaashii SYL in badan oo kamid ah uu ahaa gobolkan midkii soo saaray sida gobolada wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay maraan ay dalka u soo saaraan ayuu gobolkan wuxuu soo saaray halgamayaal iyo hogaamiyayaal iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan Soomaaliya magac iyo maamuus ku leh maanta xageedu gobolkan markii ku dambeeyay ay soo diin mudan 70 sano ka hor Soomaaliya midaynteeda iyo qarannimadeeda iyo gobonnimadeeda ayuu gobolkan u halgamayay maanta shantii degmo oo gobolkan ka koobnaa saddex dawladood ayaa ka kala aqoonay galmudug iyo Puntland iyo waxa weyn ximiniye taas waxay u baahan tahay dhalinyaradu inay ka damqamaan oo si dariiq wanaagsan iyagoo u maraya inay ka dhiidhiyaan arrintaas sidii dhalinyaradii hore ee Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke iyo Daahir Cismaan Sharmaarke iyo Saydiin Xuseen Nuuriye intaashooda oo 13 ka mid ah gobolkan waa kii u soo saaray hamigooda iyo dareenkooda uu ahaa Soomaalinimo sidii ay ku raadiyeen waxay taa ku gaareen inay Soomaali mideeyaan inay ka gudbaan kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabyaalad sumadoodu inay noqoto Soomaalinimo wax ka hooseeya aysan noqon inay Soomaalinimo isugu heeliyaan inay Soomaalinimo ka dagaalamaan qof Soomaaliya in dhibaato loo geysto waxa halku dhigo ah abla isku dila ayanoma ee ahya wadan abla isku dila ayanoma ee ururiya wadan iyo Soomaalinimo waxaynu ku weyno kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabyaalad ku gaareen munaasabadan 70 sano kadib dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaanu dirayaa fariin waxaan cod dheer ku oranayaa qof Soomaaliya qofkii dila dhalinyaro waa qof Soomaaliya oo dhan dilay qof Soomaaliya qofkii dhibaateeya waa qof Soomaaliya oo dhan dhibaateeyay qof Soomaaliya qofkii u heliya waa qof Soomaaliya oo dhan u heliya waa qof Soomaaliya oo dhan wax taray inaynu tacaddi iyo dhibaato qof Soomaaliya meel ugu geysanaya ka dagaalano inaynu gaar ahaan gabdhaheena Soomaaliyeed ee sharafta badan in tacaddi loo geysto dhammaanteen aynu ka dagaalano tacaddi gabar Soomaaliyeed loo geystaa inuu noqdo Soomaaliya oo dhan tacaddi loo geystay hiil gabar Soomaaliyeed loo galaana inuu noqdo hiil Soomaaliya oo dhan loo galay dhalinyaro ummad walba mustaqbalkeedu waa dhalinyaradeeda ummadii dhalinyaradeedu hagaagta ayaa mustaqbalkeedu hagaagaa ummadii dhalinyaradeedu xumaato ayaa mustaqbalkeedu xumaada mustaqbalkii dalku waa idinka mustaqbalkii ummaddu waa idinka 70 sano ka hor ayaynu xusaynaa halgamayaashii SYL oo hadda aysan cili ka noolayn inay maanta ay kaalintii ay qaateen inaanu maanta u dabaaldegno laakiin waxaa mudan inaynu isweydiino meelay kaalinteen maxayna ku aadan maxayna ku waajiba maxayna qabta inaynu isweydiino inaynu Soomaali baa leh hadduu silci iyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed inaynu Soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo Afrika waxay ka dhigeen dalka ugu taariikhda fiican kuwii aan maanta xorriyadda gaarsiinay ayaa ciidan maanta inoo soo diray waa ayaan daro Soomaaliya waxay noqotay Afrika dalkii ugu horreeyay ee xorriyadda qaatay kuwa badan oo Afrikaanana gaarsiiyay waxay noqotay dalkii ugu horreeyay ee halgamayaashii Soomaaliyeed markay halgamayeen Afrika sida quwadaha waaweyn loola dagaalamay ee diyaarada lagu weeraray dal diyaarada lagu weeraray Afrika Soomaalida ugu horreysay halgamayaashii iyo geesiyaashii Soomaaliyeed ayaa sababay waxay kaloo ahayd dhinaca siyaasadda iyo hogaaminta Afrika wadankii ugu horreeyay ee si dimuqraadi ah madaxweyne intuu xukunka uga dego inta looga guuleysto oo si xor ah
dalkiisa iyo dadkiisa ugu noolaado naxariista janna allaha siiyo aadan maxamed cabdullaahi aadan cadde Soomaaliya way kuftay way dhacday laakiin haddana way kacday madaxweyne Sheekh Shariif waxa uu isna 42 sano sameeyay taariikh midii la mid ah iyadoo aan buuq iyo dhibaato dhicin in si sharci ah inta xukunkii looga guuleystay oo si nabada ku wareejiyo waa taariikhda Soomaaliya inaysan doorsoomin ee Soomaali wali ay nooshahay ayay ku tusaysaa maanta Soomaaliya in meel walba looga xadgudbo badeedii lagu xadgudbo barigeedii lagu xadgudbo qarannimadeedii lagu xadgudbo dadkii Soomaaliyeed kumanaan iyagoo taariiba dhalinyaradii gaar ahaan ay badaha adduunka ku dhimanayaan oo ku daadanayaan kumanaan ay xabsiyada ku jiraan kumanaan waxa weeyaan ay naafoobeen kumanaan cudurro aan daawo lahayn ay ku dhaceen maxaa inoo keenay waxaynu ku gaboodfalnay abaalkii ay inoo galeen halgamayaashii SYL halgankii ay inoo galeen inay qarannimo iyo dowladnimo ina gaarsiiyaan ayaynu waxa weeyaan inagii dhaawacnay oo inagii burburinay iyadii sidaynu u adkayn lahayn sidaynu Soomaalinimo sumad uga dhigan lahayn sidaynu Soomaalinimo u raadin lahayn sidaynu midnimo u raadin lahayn sidaynu wadajir u raadin lahayn inaynu dhammaantan dhalinyarada ka shaqayno waxaa xusid mudan gobolkan mudug sidii aan horay u sheegay inuu ahaa warshad soo saadhay rag taariikhda qiimo ku leh in maanta Cabdullaahi Ciise Maxamuud naxariistii janna allaha siiye halyeeyga taariikhda Soomaaliya markii ay qarannimada qaadanaysay United Nations marka uu aadayay ay halganka kuwii u galay talaalkii sunta ahaa ee lagu talaali lahaa ninkii isku dhigayna uu ahaa Maxamuud Yuusuf Muuro oo maanta gaalkacyo suntii isagoo la ildaran oo jeefo iyo sidoo kale kii sunta warqadii taarka ahayd liqayna Cabdisaaq Xaaji Xuseen oo maanta dal shisheeye oo waxa weeyaan ku joogo qaxootinimo taa maxaa inoo keenay in labadoodii guri ay kala qaybsanaadaan oo laba dowladood ay kala noqdaan warsoobnimo maaha iyaguna naftooda isku furteen hadda Cabdullaahi Ciise diinta la soo saaro la yiraahdo adiga iyo Maxamuud Yuusuf Muuro laba dowladood baad kala tihiin oo galmudug iyo Puntland la yiraahdo oo Soomaaliya ka mid ah war wuxuu qaadan karaa waa maya inaynu kala qaybsanaanta gobolka midug dhammaano inaynu isdilka wada noolaasho ku bedelno inaynu isdhaca wax wada cunid ku bedelno inaynu kala qaybsanaanta iyo waxa weeye cadaawadda iyo isdilka waa maxkamad aynu inagu isku xukunnay yaa ina yiri isdila yaa ina yiri isdhaca yaa ina yiri isnabcaada waa maxkamad aynu inagu isku xukunnay waxaynuna iskugu xukunnay waa garasho xumadeena in caqligu shaqeeyo in garashadu shaqayso inaynu isdilka iyo isdhaca iyo cadaawadda iyo kala qaybsanaanta inaynu Soomaalinimadii qiimaha badnayd ku bedelano inaynu ku dadaalno waxaan leeyahay dhalinyaro maanta waajibkayna saaran ma aha inaad waxa weeyaan u dabaaldegtaan 70 sano ka hor dhalinyaradii Soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen oo ay qaateen maanta teena ka muhiimsan innaga waxa laga yaabaa ka fursado badan innaga ka aqoon badan innaga ka dhaqaale badan innaga ka horumariya ka teknolojiya badan laakiin waxa weeye waxa xaqiiqo ah niyadii iyo qalbigii ay hayeen ee qiimaha lahaa ee sharafta lahaa baynaan hayn innagu reer qurac iyo reer qasax iyo meelo soke ayaynu fiirinaynaa iyaguna hansare oo Soomaalinimo ayay lahaayeen dhammaan waxaan gabagabadii iyo gunaanadkii inaan celinayaa in Allah intii munaasabadaan qiimaha badan runtii soo abaabushay ama gacan ka geysatay gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa hay'adda BDRC oo mar walba hiilka dhalinyarada u taagan sida ay dhalinyarada ugu tababari lahayd wada noolaanshaha